السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومر كله iyo barnaamijtii khayriga ahayd oo ku casuumi jirnay marba say noogu suurta gasho culimada waa barnaamijkii la magac baxay al-liqaa al-maftuux kulankii furnaa oo culimadan ku casuumi jirnay maanta waxaan nala joogo insha Allah taala mowduuc aad qayim u ah qiimo badan noo soo jeedin doono dhammaan nabada anfici doono cid kastoo daawato dhageysatana anfici doono شيخنا شيخ رفاعي فليتفضل مشكورا ومأجورا بإذن الله اللقاء المفتوح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إله سبحانه وتعالى يا مهسن أولا waxaa kaloo mahad u celinayaa sheekh cabdalla oo igu casuumay barnaamijka al-liqaa al-maftuux biidni illaahi ilbaari intuu ilaah naga garansiiyo ayaan wax ka dhihi doonaa hadduu alla idmo. waxaan ka hadlaynaa mowduuc qof walbo anaga naga mid ah oo muslim ah niyadiisa ku jirto ama uu jeclaa lahaa. waxaa xaqiiqo ah mowduucaasi qof walbo anaga naga mid ah haddii la weydiiyo oo la dhihi lahaa maxaa ugu jeclaa laheyd oo ilaahay subxaanahu watacaala hadduu su-aal ku weydiiyo uu ku yiraahdo wax i weydiiso oo aan ku siiyo, jawaabteena 99% waa la dhihi karaa waxay noqon laheyd in ilaahay subxaanahu watacaala uu naqsiiyo ama uu nageliyo jannadiisi. walaalayaal saan ogsoonnahay ilaahay subxaanahu watacaala bini aadanka markuu abuuray ee koonka uu keenay keligood muusan keenin, ambiye ayuu soo raaciyey. ambiyadan wuxuu usoo dhiibay kutub ay caddeeyaan diinta way caddaysay acmaasha wanaagsan ee lagu mutaysto jannada lagu mutaysto iyo acmaasha aan wanaagsaneyn ee lagu mutaysto cadaabka ilaahi subxaanahu watacaala. ilaah naga badbaadiyo. acmaashi waxaa kaloo ogaanaynaa in niyadda aan gishano mar walba ay tahay sida nabi maxamed sala allahu alay wasalam ka sugnaatay qof ma jiro camal uu la yimid jannada ku galayo. qof ma jiro camal uu la yimid wanaagsan jannada ku gala. maxaa yeelay inta aan samaynayno ilaahay subxaanahu watacaala jannadiis way kala qaalisan yihiin, iskuma dhigmaan. sidaa daraaddeed inaan dadaalno, aan juhdi badan bixino si ilaahay subxaanahu watacaala jannadiisii iyo raalli ahaanshihiisa aan u helno maalinta qiyaamaha. oo maalin ilaahay subxaanahu watacaala xaalkeedu u ogyahay. qof walbo anaga naga midana ha ku dadaalo si u kasba lahaa ridaha iyo raalli ahaanshaha alle. intaan markaan kasoo gudubno, asbaab ayaa jirto aada iyo aada u badan oo ilaahi subxaanahu watacaala sabab kaaga dhigayo inuu jannadiisa uu ku geeyo. aada iyo aad ayuu badahi ma soo koobi karno, laakiin insha allahu tacaala in yaroo kooban oo dadka intooda badan haysato ayaan wax ka tataaban doona hadduu alla idmo. sababta koowaad oo ilaahi subxaanahu watacaala sabab uu nooga dhigaya inay jannadiisa aan helno waa qofka muslimka inuu badiyo acmaashiisa wanaagsan. acmaasha wanaagsan inuu badiyo, hadday soom tahay, hadday sadaqo tahay, hadday zako tahay, haddii ay salaad tahay, haddii ay adkaar tahay, qur-aan akhris, wax walba oo wanaagsan oo ilaahay subxaanahu watacaala kuu dhoweynayo qofka inuu badiyo. nabi maxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugnaatay inuu yihi low ana rajula khara calaa wajhihi min yowmi wulida ilaa yowmi yamuut. qof hadduu wejigiis dhulka dhigi lahaa maalintii hooyadii dhashay ilaa maalinta uu ka dhinto wejiga dhulka uu ku hayo haraman fii daacati illaahi caza wajal, weliba uu ku duqoobo uu ku gaboobo asigoo sujuudsan daacada ilaahi subxaanahu watacaala, laxaqarahu dalika alyowm. maalinta qiyaamaha marka la gaaro wax alle wixii uu soo sameeyey ee sujuudda uu ku sameeyey intuu sujuudsanaa. bal fiiri, waa maalintii uu dhashay ilaa maalintii uu ka dhintay sujuud hadduu dhulka ku madax wejigiis dhulka uu ku hayo, inta wanaaga ee uu sujuudsanaa maalinta qiyaamaha marka la gaaro wuxuu xaqirayaa wuxuu soo sameeyey. wuxuu soo sameeyey ayuu xaqirayaa. maxaa yeelay wanaagga iyo khayrka hortiisa ka muuqda markuu arko ayuu wuxuu xaqirayaa wuxuu soo sameeyey. nabi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahay walawadda annahu rudda ila dunya. wuxuu jeclaa lahaa qofkaasi in loo celiyo adduunyada, in loo celiyo. maxaa yeelay sababta loo celinayo u jeclaanaya maxay tahay? kay yasdaada min alajri wathawaab, si usoo ziyaadsado ajar iyo thawaab, si usoo ziyaadsado oo acmaashii wanaagsaneyd
ee dunida markuu joogo uu samey jiray inuu sii ziyaadsado maxaa yeelay wanaagga iyo khayrka ilaahay subxaana wa tacaala uu kala kulmay ayaa wuxuu uu soo sameeyey markuu fiiriyo wuxuu xaqirayaa wuxuu uu soo sameeyey kadib wuxuu jeclaanaya in dunida loo celiyo acmaashiisa uu soo wanaagsanaaso acmaasha wanaagsan soo badiyo marka hadda ayaan jaanis iyo fursad u haysanaa ilaahay subxaana wa tacaala nafta baaqi noogu dhigay marka aan wanaajino acmaasheena wanaagsan acmaasha aan wanaajino inaan badino aan isku dayno aan ku dadaalno insha allahu tacaala arrinta labaad sababta labaad ilaahay subxaana wa tacaala laga yaabo inuu sabab noogu dhigo ama ay tahayba inaan jannadiisa aan ku mutaysano waxaa waaye arrinta deynta dadkan inta badan wax ayaan kala deynsanaa wax ayaan kala qaadanaa qofka asigoo deyn qaata ayaa laga yaabaa bixinteeda inay ku adkaato ayaa laga yaabaa marka qofka ina deynta laga sugaayo ama in loo cafiyo waxay kamid tahay asbaabta ilaahi subxaana wa tacaala sabab uu kaaga dhigay jannada inuu ku geeyo nabi maxamed sala allahu alayh wasalam abi hureyra wuxuu ka wariyey inuu nabi yihi sala allahu alayh wasalam ina rajula lam yacmal khayran qad qof ayaan weligii wuxuusan samaynin khayr ah wax khayr ah weligii muusan samaynin wa kaana yudaayinu nnaas dadka ayuu wax deymi jiray nin hantiilo ayuu ahaa taajir ah dadka ayuu wax deymi jiray laakin wax kaloo khayr ah oo weligii uu sameeyey ma jiraan fayaquulu lirasuulih qofkii u shaqaynayay ee dadka deynta kaga soo aruurinayay wuxuu ku dhihi jiray khud maa tayasara waxaa ka soo qaadaa wixii fududaado qofkii wixii u fududaado ee uu haayo uu kusoo siiyo ka soo qaad watruk maa casir wixii cuslaadana ka soo tag ee qofka waxba ha ku dhibin watajaawaz iskana dhaaf lacala allaha yatajaawazu cana waxaa laga yaabaa in ilaahay subxaana wa tacaala anagana dunuubteen noo dhaaf ayaa laga yaabaa qofka iska dhaaf ha ku adkaynin falamaa halak ninkii markuu dhintay taajirkii dadka wax deemi jiray qofka u shaqaynaya ku dhihi jiray dadka ha ku adkaynin waxa u awoodo qof ka soo qaad wixii ku cuslaada ka soo tag iskana cafi ku dhihi jiray wuu dhintay dunida wuu ka tagay ilaahay subxaana wa tacaala ayuu hortagay ilaahay ayaa la hadla ninki qaala allahu tacaala hal camilta khayran qad weligaa wax khayr ama samaysa intaa dunida ku joogtay ninkii taajirka ahaa ilaahi subxaana wa tacaala ayaa isla hadlayo su-aasha rabbi ayaa wuxuu weydiinaya ninkii taajirka wuxuu ku leeyahay weligaa khayr ma samaysa intii dunida ay joogtay ninki wuxuu ku jawaaba qaala laa maya wax khayr aan sameeyey haba yaraatee ma jiraan laakiin wuxuu ka soo reebtay intii yar tahay uu samey jiray ee ninkii wiilkii u shaqaynayey ee deynta usoo aruuri jiray dardaarankii uu ku dhihi jiray ayuu ilaahi subxaanahu wa tacaala mar labaad u sheegay ilahayna wuu ogaa wuxuu ku yihi ilaa anahu kaana lii gulaam wiil ayaa ii shaqay jiray wa kuntu udaayinu nnaas dadkana wax ayaan deymi jiray deyn ayaan sii jiray faidaa bacadtuhu markaan wiilkii diro dadkan u diro yataqaadaa dadka suu deynta kaga dalbado ka soo qaado qultu lahu waxaan ku dhihi jiray khud maa tayasar wixii fududaado ee qofka u fududaado ka soo qaad watrug maa casir wixii cuslaada ka soo tag watajaawaz iskana dhaaf lacala allah yatajaawazu cana in ilaahi subxaanahu wa tacaala noo dhaafo ayaa laga yaabaya qaala allah ilaahi subxaanahu wa tacaala bal jawaabtuu bixiyey fiiri iyo abaalmarinta uu siiyey faqad tajaawaztu cank ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahy maadaama sidaas aad samey jirtay dadka masaakiinta wax inaad deymisid haddana aadan ku adkay jirin aadan ku dhibi jirin bale mararka qaar isaga cafi jirtay anna hadda ayaan kuu dhaafay hadda ayaan dunuubtaadi iyo wixii aad soo samaysay dunida kusoo samaysay xumaa hadda ayaan kuu dhaafay ilaahi subxaanahu wa tacaala arrinkaasi ayuu ugu abaalmariyey ninkaasi taajirka ahaa dadkana wax deemi jiray intuu dunida joogin wax khayr aanan samaynin ilaahi subxaanahu wa tacaala raalli ahaashihiisi iyo jannadiis ayuu mutaystay wuxuuna ku mutaystay sababta uu la yimid oo ah dadka inuu deynta ka sugi jiray hadday ku cuslaatan uu iska cafi jiray maadaama anaga inteena badan deymaysannahay dadka ilaahi subxaana wa tacaala wax uu siiyey waxaa laga rabaa inay xadiiska nabi maxamed sal allahu alay slm inay ka faa'iideystaan fursad ayuu ilaahi subxana wa tacaala gacanta u geliy inay iska dayacaan maahan qofka deyntaa ku leedahay haddii xaalad adag ay soo wajahdo waxaa laga yaabaa inaad kaga farxisid hebelow maal alla markaad heshid iska keen lacagtan insha allahu tacaala haddii aa awoodid waxaa dhahda waa kuu cafiyey cafis ayay kuu tahay ilaahi subxaana wa tacaala asna soo maalinta qiyaamaha kuu cafiyo dunuubtaada kuu dhaafo jannadiisana ku mutaystid sababta labaad ee jannada lagu mutaysto waa ihmaal mucsir qofka wax ku cuslaadeen in laga sugo deynta laga sugo
loona dhaafo deyntiisa hadduu keeni waayo awoodi waayo in loo dhaafo sababta saddexaad ayaan ku dareen waxay tahay imaadatu lcadaa can dariiq shayga xun ee jidka yaallo waxaa xun ee jidka yaallo oo dadka dhibaayo in laga leexiyo jidka in laga leexiyo waa sabab aydane ilaahi subxaana wa tacaala jannadiis lagu mutaysto abi hureyra nebi maxamed sala allahu calay wasalam wuxuu ka wariyey inuu yihi abu hureyra waxaan maqlay nebiga sala allahu calay wasalam oo dhahayo nazaca rajulu lam yacmal khayran qad nin ayaa wuxuu ka siibay aan weligii khayr samaynin gusna shawkin can dariiq laan qodax ah ee jidka taallay ayuu ka siibay uu ka wareejiyey ima kaana fi shajaratin inay ahayd geed jidka ku taallay uu ka gooyey ama inay ahayd wax jidka yaallay lasoo dhigay uu ka qaaday labada way noqon karaan fa amaadahu ninkii wuu ka wareey jidka ayuu ka wareejiyey qodaxda dadka dhibaysa fashakara allahu lahu biha ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ku shukriyey ninkii wanaag uu sameeyey dadka muslimiinta ah dhibka haystay ee jidka ay ku qabeen ka wareejiyey dhagax jidka ku go-aanad ka qaaday geed dhulka yaallo oo dadka dhibay ayaa ka qaaday god jidka ka qodnaa ee dadka ku dhibtoon jiren ayaa aad duugtay oo aad hagaajisay jidkii qaribnaa ayaad hagaajisay oo carakaawo iyo dhagaxaan ashyaa badan aad ku shubtay jidka ina islaaxisid oo dadka wixii dhibaya ka wareejisid qofka hadduu la yimaado sida ilaahi subxaana wa tacaala ninkaas ugu mahad celiyey ugu shukriyey ayuu adna kuugu shukrinayaa fa adkhalahu ljanna ninkii ilaahi subxaana wa tacaala jannadiisa ayuu geliyey wuxuu ku mutaystay waa maxay acmaal weyn ama shaqo badan uu sameeyey maaha laan jidka taallay oo dadka dhibaysa qodaxeed ayuu ka wareejiyey maadaama hadda magaalooyinka aan degannahay jidadka wax badan aan ku arkayno marka qaar waxaa laga yaaba jidka ina kula kulantid qob moos lagu soo tuuray qobka moos ka wareej jidka dhinac kaga dhig maxaa yeele waxaa laga yaabaa qof muslim inuu ku istaago ku sibirraxoodo kadibna uu ku jabo ha ka tagin ka wareeji dhagax jidka yaal ayaad aragtay ka qaad adigoo niyadaada ay ku jirto in ilaahi subxaana wa tacaala kugu dambi dhaafo jannadiisna kugu geeyo ha ka qaadin macnaa ka qaad iska dhaqan ah ha aysan kaa noqon cibaadaha kaa noqon dadka muslimiinta inuu dhibayo shaygaani u niyeyso kana wareeji dadka dhibka ka wareeji way badan tahay marka inta maanta jidka aan xumaan kula kulanno waxaa nasiib daraa marka dadkii muslimiinta ahaa ee ilaahi subxaana wa tacaala fursadda iyo jaaniskan badan uu siiyey nabi maxamed sala allahu calay wasalam ugu bishaareeyey jidka dhibka laga wareejiyo in janno lagu hela ugu bishaareeyey in anaga aan soo dhigayno in anagiiba aan soo dhigayno khaasatan dadka waxaa u badan maqaayadaha ka shaqaysta dadka dukaamada jidadka hortooda ku leh dadka deriska oo jidka deriska la ayaa u badan waxaa arkaysaa mararka qaar maamo qof weyn ah ama gabadhii shaqaalaha cidda ka shaqaynaysay inay lagu soo qaadaa baaldi raashin qurmay ee xali iyo shalay ahaa oo weli biyo ay ku dhex jiraan qofka markuu agmara sanku ka qabsanayo jidka ayaa lagu soo daadinaya waa meesha la yiri jidka laga wareejiyo shayga xun laga wareejiyo anaga soo dhigayno qashinka ayaan dhignaa khaasatan wadankeena Soomaaliya dadka qaar waxay sameeyaan waliba ogsooyin qolooyinka maqaayadaha iska leh gaar dameerada iyo qolooyinka xamaaliyaasha ayaa waxaa loo soo dhiibaa qashinkii maanta maqaayad laga aruuriyey lacagaa lagu siiyaa meel uu geynayana ma yaqaanaan so u sii wada asna wuxuu iskaga ridayaa jidka dhexdiisa ayuu ku tuurayaa qofkaas ha ogaado usoo dhiibay midkan dameerlaha ama xamaaliga usoo dhiibay qashka usoo dhiibay dembiga qayb weyn ayuu ku leeyahay waan ogsoonahay qofku uu arkaa jidka waxa dhigaya inay qolooyinka soo qaaday waxaan nagala rabaa marka in anaga qolooyin u xil saarno oo qashin ka qaadno meel loogu talagalay aan gelin jidka aan dhigin bilcagsi qofka haduu jidka wax xun soo dhigo cadaab ayuu ku mutaysanaya sida qofkan wanaag xumaantii ka qaaday jidki janno ugu mutaystay ayuu asna wuxuu ugu mutaysanaya cadaabkii alle maxaa yeelay dadka ayuu dhibay arrintaas maanta waa tan saddexaad imaadatu al-adha can ad-dariiq ee ilaahi subxaanahu wa tacaala sabab noogu dhigayo inaan jannadiisi aan ku mutaysano tan kale ee afaraad ee kamid asbaabta ilaahi subxaanahu wa tacaala lagu mutaysto jannadiisa lagu mutaysto waxaa kamid ah adikr xuska alle qofka ilaahi subxaanahu wa tacaala dikrigiisa carabkiisa inuu ka qoynaado jidka markaa maraysid marka aad fadhisid markaa siifanaysid mar walbaba marka laga soo reebo amaakinta ay xaaraamta tahay in dikriga lagu akhriyo marka laga soo reebo inta kale ilaahi subxaanahu wa tacaala dikrigiisa carabkaa ka qoynaado oo akhri maantuna subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar walaa xawla walaa quwata ila billah daldal adkaar dalda jidka intaa socoto dhan
si ilaahi subxaana watacaala sababkiisi aada ugu mutaysatid janna ugu mutaysatid nabi maxamed sala allahu calay wasalam ibn mascuud wuxuu ka wariyay nabi sala allahu calay wasalam nabi inuu yihi laqiitu ibraahiima leylata usriya bi waxaan la kulmay nabi ibraahim ayaan la kulmay habeenkii la dheelmiyey habeenkii nabi maxamed sala allahu calay wasalam alisraa walmicraaj ee dunida laga qaaday ee ilaahi subxaana watacaala loo geeyey habeenkii dheelmitaanka nebigu wuxuu leeyahy waxaan la kulmay nebi ibraahim ayaan la kulmay faqaala wuxuuna igu yiri yaa muxamed nebi maxamedow ummadaada salaan iga gaarsii ummadaada waxaa iga gaarsiisaa salaan iga gaarsii waxaadna u sheegtaa jannada inay tahay mid ciiddeeda ay wanaagsan tahay jannada ciiddeeda waa ciid wanaagsan cadbatulmaa biyaheedan aada iyo aad ay u macaan yihiin wa annaha qiicaan waxayna leedahay dhul banaan ay leedahay dhulkaa banaanse khiraasuhaa shayga lagu tallaalo ama geedka lagu tallaasho qofka muslimka dhulka banaan uu ku tallaalanayo waxaa waaye subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar geedka dhulka banaan ee jannada ku yaala lagu tallaalanayo ee qofka muslimka looga baahanya inuu kusii abuurto intuu dunida joogo waa subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar geedka jannada ku yaala marka sifadiisa iyo tilmaamtiisa nabi maxamed sala allahu calay wasalam ayaa noo cadeeyey nabi maxamed sal allah alay slam wuxuu leeyahay maa fi ljannati shajara ilaa wasaaquhaa min dahab ma jirto geed jannada ku yaalla ma jiro ilaa salkiisi geedkaasi waa dahab salka geedkaasi waa dahab maa fi ljannati shajara ilaa wasaaquhaa macnaa caleemihiisa iyo laamaha geedka u bixiya cafwan waa min dahab dahab ayaa ilaah subxaana watacaala uu ka sameeyey dhirarkiisa iyo fogaantiisa marka geedkaas intuu dhirar la egyahay intuu isku jiro nabi maxamed sala allahu calay wasalam ayaa cadeeyey wuxuu leey nabi maxamed sala allahu calay wasalam ina fi ljannati la shajara jannada waxaa ku sugan ama ku yaallo geed ayaa ku yaallo yasiiru raakibu ljawaad ninka faraska saaran ee socdo ee weliba faraskiisa uu yahay faras aad iyo aada u dheereeyo faras la tababare buglaalan ilaah subxaana qofkaasi u tababaray inuu dheereeyo faraska orodka badan ninka raakibka ee socotada saarani wuxuu u soconayaa fii dhillihaa geedkaasi hooskiisi geedka hooskiisi meeshuu kasoo bilowdo ilaa uu ku dhammaado qofkaasi haddii la dhaho wuxuu u soconayaa 100 caamin 100 sano maa yaqdacuha mana jara ma gaarayo geedkaasi hooskiisa meeshuu ka bilowdo qofkii raakibka ah ee faraska dheereeye watay markuu socodkiisa kasoo bilaabo geedka hooskiisa meeshuu ka bilowdo 100 sano markuu socdo weli muusan gaarin geedkii hooskiisa meeshuu ku dhamaana weli muusan gaarin waa 100 sano uu geedkaasi marka wax lagu abuurto ama abuurkiisa waa maxay waa adkaartan fudud fiiri subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar waa adkaar aada iyo aada u fudud qarash iyo lacag kaagama baahno ma ku daalaysid ma ku oomeysid cid kaa mashquulin karta haba yaraatee ma jirto jidka intaa socota qabso hooyada jikada ku jirto intay ubadkeeda cuntada u diyaarinaysa ha akhrisato ardayda yararka ha lagu laazimiyo hala baro say ula qabsadaan awlaada guriga kuu joogto mararka qaar waxaa la sameeyaa jalse ayaa la sameysa laiskugu yimaada guriga kadib adkaarta 1,000 2,000 3 qof walba ha akhriyo si ilaahi subxaana watacaala awlaadda anagana carabkeena aan ula qabsano awlaaddeena markay soo weynaadaan u noqdaan kuwa ilaahi subxaana watacaala dikrigiisi ku nool maadaama subxaana allah walxamdu lilah walaa ilaaha ila allah wallahu akbar ay tahay geedaha jannada lagu abuurto weliba geedkaas nabi maxamed sala allahu calay wasalam sifada uu ku bixiyo waa aragtaan hooskiisa qofka raakibka ee faraska saaran weliba faraska dheereeye wata markuu soo bilaabo socodka geedka hooskiisa uu kasoo bilaabo 100 sano hadduu socdo xitaa ma gaarayo geedka hooskiisa ma gaarayo meeshu ku dhamaado marka waxaa loo baahan yahay inaan istikfaartaasi iyo adkaartaasi ka faa'iidaysano intaan dunida joogno ilaahi subxaana watacaala naftana baaqi nooga dhigay waxaan kusoo gabagabeyneynaa asbaabta kale asbaabta afaraad ama shanaad waa asadaqa ama al-infaaq fi sabiili illah qofka ilaahi subxaana watacaala dartii inuu wax u bixiyo qofka ilaahi subxaana watacaala dartii inuu wax u bixiyo waxay kamid tahay asbaabta ilaahi subxaana watacaala qofka sabab kaga dhigayo inuu jannadiisa uu ku helo jannadiisa inuu ku helo ayay kamid tahay nabi maxamed sala allahu calayh wasalam dadkii muhaajiriinta asxaabadii muhaajiriinta ahaa markay yimaadeen magaaladii madiina waxay u baahdeen biyo ceel biyood oo ay biyaha ka cabaan ayay u baahdeen kadib nabi maxamed sala allahu calayh wasalam waxaa jira magaalada madiina nin ka tirsanaa qabiilkii la oran jiray reer khifaar wuxuu haystay ceel ayuu haystay
ceel ayuu haystay nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ayaa ceelkan magaciisa waxaa la dhihi jiray ruuma ninkii nabi maxamed sala allahu alay wasalam ninkii ceelka lahaa ayuu la hadlay wuxuuna ku yiri tabiicuhaa bicayni fi ljanna war ishaan biyaha ay haysatid ee ceelka ah waxaa nooga gadataa il jannada ku taalo il jannada ku taalna ku gado tan dadka muslimiinta say u cabaan kaga faa'iidaystaan adina ilaahi subxaanahu watacaala suu kuu siiyo il jannada ku taalo ninkii ceelka lahaa nabi maxamed sala allahu alay wasalam wuxuu ugu jawaabay laysa li ya rasuula allah caynu gayraha ma haystay il kale ee ilmaha aan ka biisho ama aan ku noolaada ma haystay tan keli ayaan haystaa ee arrintaasi ma samayn karo ma awoodo arrin aan awoodo aan samayn karo ma ahan nabi maxamed iga daa ilmaha aan ka biishay arrinkii wuxuu gaaray cusmaan binu cafaan oo taajirkii saxaabada ahaa cusmaan binu cafaan ayuu gaaray warkii ahaa in ninkii reer khifaar ahaa nabi maxamed sala allahu alayh wasalam iyo asaga inay warkaas u dhex maray oo ah war ceelkan janno nooga iibso iyo ma awoodo ma samayn karo in arrinkii nabi maxamed sala allahu alayh wasalam ninkii uu kala hadlay wuxuu gaaray cusmaan binu cafaan cusmaan binu cafaan nin aad iyo aad u sadaqo badan oo taajir ayuu ahaa faishtaraaha bikhamsati wa halaathiina alfi dirham wuxuu ku gaday 35,000 oo dirham ayuu ninkii kaga gatay ceelkii cusmaan binu cafaan ayaa soo wareegsaday ninkii wuxuu siiyey 35,000 oo dirham ayuu siiyey waa lacag aad iyo aad u badan kadib nabi maxamed sala allahu alay wasallam u yimid nabi muusa sheegin cid kale uu la wadaaga ma jirto ninkii ayuu u tagay lacagta ayuu siiyey ceelka ayuu ka soo wareegsaday kadib nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ay u yimid cusmaan binu cafaan wuxuuna ku yiri atajcalu lii mithla aladii jacalta lahu caynan fi ljanna in ishtaraytuhaa nabi maxamedow ma ii yeelaysaa sidii ninkii reer khifaar ceelkiisii aada ugu dhahdayo kale in il jannada ku taala ilaahi subxaanahu watacaala ugu bedelayo ishaani ama ceelkan dunida ku yaalo arrinkii oo kale ma ii yeelaysaa haddii aan soo gato nabi maxamed sala allahu alay slam wuxuu ku yihi nacam kadib cusmaan binu cafaan hore ayuu usoo gaday ceel gacantiisa ayuu ku jiraa wuxuu ku yihi ishtaraytuhaa nabi maxamedow ceelka waan soo gaday wajacaltuhaa lilmuslimiin dadka muslimiinta ayaan siiyey ee dadka muslimiinta ka cabin waa waqfi waqaf waay waa alinfaaq fii sabiili illah waa sadaqa jaariya dadka muslimiinta ha cabin maalin ay kaga baahi badnaayeen ishaas ceelkaasi dadka muslimiinta ahaa ee ansaar iyo muhaajiriin ee magaalada madiine ku sugnaa maysan jirin waxaa ka fujiyey cusmaan binu cafaan oo wuxuu ku gatay ishiisii janno ku taalay ceelkii dunida ku yaalay waa ceel iska dugmi karo waa ceel biyihiisa ay guri karaan waa ceel wax walba ay ka soo roobaan wuxuu ku gatay ceel aan biyihiisa weligeed aysan guraynin ka biyo macaan ka faa'iido badan ee jannada ku yaal ayuu ku gatay cusmaan bin cafaan faa'iidadaasi wuxuu ku helay waa asadaqatu fii sabiilillah ama alinfaaqu fii sabiil dadka muslimiinta ah qofka taajirka ee wax haysto inuu ka warqabo dadka muslimiinta masaakiinta ceel biyoodyo la qodo madaaris la dhiso masaajid la dhiso awqaaf badan la sameeyo si ilaahi subxaana watacaala qofkii sabab uu kaga dhigay inuu jannadiis ku mutaysto sidoo kale cusmaan bin cafaan dadka muslimiinta magaalada madiina marka kusoo bateen oo dadka aad usoo islaameen masaajidka nabi maxamed sala allahu alay wasalam wuxuu noqday ciriiri ayuu noqday dadku wuu ku yaraaday nabi maxamed sala allahu alay wasalam maalmaha ka mid ah ayuu saxaabadiis la hadlay wuxuuna ku yiri man yashtarii buqcata aala fulaan yaa noo gadaayo dhulka reer aala fulaan ee masaajidka ku dhegan dhul banaan ee masaajidka ku dheganaa yaa noo gadaayo oo masaajid ku ziyaadinayo man yashtarii buqcata aali fulaan fayaziiduhaa fi lmasjid bikhayri minha fi ljanna oo masaajidka inuu ku ziyaadiyo kuna gadanayo dhulkaasi dhul ka khayr badan ee ku yaalo jannada ku yaalo fashtaraha cusmaan binu cafaan ayaa dhulkii gaday masaajidka ayuuna ku ziyaadiyey wuxuuna ka gaday min sulbi maalihi maalkiisa ayuu ka gaday hantidii u haystay ayuu dhulka ka gaday wuxuuna ku ziyaadiyey masaajidka ayuu ku ziyaadiyey dhulkii marka wanaagaasi cusmaan binu cafaan u sacyinayo u ordayo waa maxay waa in ilaahi subxaanahu watacaala jannadiisi uu ku mutaysto sadaqada uu bixiyey maadaama nafta ay nagu jirto sadaqadana ilaahi subxana wataala dadka intay ban dad waxsii aan nahay inaan sadaqada ku dadaalno dadka masaakiinta ah ee ehelka ee qaraabada ah oo aan ka warqabno waxba haysanin oo dabkooda uu dansan yahay inaan ka warqabno oo wax aan siino laga yaaba lacagteerta adi aad bixinaysid in aad waxba aadan u arkin laakiin asaga wax weyn ay u tarayso wax weyn ay u tarayso kuu soo duceeyo aafaad badan iyo masaa'ib badan kugu soo socotay ilaahi subxaana watacaala sadaqada darteed kaaga xijaabo ducadu ilaahay kuu aqbalo waa kaga farxisay asagoon waxba ogeyn laga yaaba maanta inay ku taagneed oo arrin murugle ay haysatay uu iska qarsanayay oo ilaahi subxaana watacaala ugu sheegtay
ilaahay subxaana watacaala u sheegtay kadibna kaga farxisay ducaa xitaa hadduu kuu duceyn farxaddaas qalbigiisa aa gelisay ayaa waxweyn kuu tarayso wuuna kuu duceyna ducaas ilaahi subxaana watacaala waxaa laga yaabaa weliba u badanta inuu kuu aqbalo kadibna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu